السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وعن ونكسن ضمان بأخيار تيار الشرف تيار الشمطة سعيد كان مجمع النهوذ السيدة طوس كان لو قد جيسني سو وكسر دواتان برامجكي نسيت إيا معاه الصب ما أنتوا تعرضوا كل صوتهم كبيشة طبعا لما تكون إياه فريق طبعا وعاركني كذا صوتي دورشدي أورك عالم جايسيتا تاسو يكون ترتمي لما قدومية وكلاها MSI oo Maxamed Xuseen Ibrahim oo ahaa gudoomiye hore uu soo xukumi jiray iyo waliba ARA oo Cabdiraxmaan Rashiid Dalma hadaba dhageystayaasha sharafta iyo xushmada laga mudan lahaa gudoomiyahan wuxuu xilka soo hayay muddo dhan 2 bilood iyo waliba 15 cisho sidoo kale gudoomiyahan waxa intuu xilka soo hayay oo soo qabtay wax qabada u tiro badan dhageystayaasha xushmada laga mudan lahaa waxa doorashada ka codeeyay xubnaha ugu tiro badan oo ay kamid ahaayeen Cabdullaahi Axmed Maxamuud Ilfar oo ka codeeyay simada gobolka Sanaag ee Ceerigaabo hadaba halka waxa imika ila fadhiya gudoomiyihii codka ku guuleystay Maxamed Xuseen Ibrahim iyo waliba Xasan oo ay isaguna xubin ka tirsan ururka siisa oo inuu dhamaantood su'aal weydiin doono sida ay warkayeen doorashadan habsami socodkii doorashada iyo waxay ka filan doonaan gudoomiyahan naqtiimkan uu doorashada ku guuleystay waxa uu qaban doono su'aasha koobaad waxa diinaya Xasan oo dhinacaygan fadhiya Xasan sida warkiisa doorashada bismillahir rahmanir rahim doorashada wallahi si fiican loo qasantay si fiican markay wallahi aad si fiican loo qasantay marka gudoomiyaha uu soo dhaweynaya waxaan leeyahay oo habariyay marka waxaan oran lahaa halka ka sii wad xilkaan way gudoomiyaha ma ka filayso qaban doona gudoomiyaha soo meeday wata wax cusub soo kordhinaya marka yani de soo kordhinaya wixii hore de aad u soo qabtay hay haadan u soo dhaweynayaan hay'ada codaysa labada gudoomiyaha tamay labada wan coday keebaa ugu codmaray Cabdirashiid Eenwar marka maxaad leedahay qabo adiguna inta la shaqeynta gudoomiyaha soo socda waxyaalo badan baa sidaan ayaan qaban insha Allah oo maatay dhageystayaasha Xasan oo aan su'aal ka weydiinay qabso socodkii doorashada imkana waxaynu soo gaadnay ama baa horteena fadhiyo gudoomiyihii doorashada ku guuleystay oo lagu soo xukumay Maxamed Xuseen Ibrahim gudoomiyaha oo ku dhawaad Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar waxaan idinku anfaleynayaa doorashada hor iyo xalaalka ah ee maanta ku guuleystay ee ka soo shaqeysay soo soo shaqeysay marxaladaha uu soo martay caqabadii koorkiiba hadana uu soo adkaysatay uu soo waxaan ku soo u fikirtay waxaan ku caqabadii koorkiiba si fiican u soo dhaweysay maxay weyn bay celinayaan waxaan leeyahay wax qabad fiican iyo guul weyn ka gaari doona insha Allah markaas ay daraadeed waa inaynu wada sameernaa kala hadii xukuumadda aan ma xorro soo hayay waxaan ku uri aan imika dib u sii doono ee khayr bay inoo rajinaa insha Allah inuu guul gaari doono dhamaanteed way gudoomiyaha waxa tahay gudoomiyaha cajiib marka dhac laga eego doorashada muddo dheer soo haysay marna ku guuleystay salaam والله doorashada inta mid lagu farxo tani wala uu ku farxaya oo maleeyaa laakiin uu ku faraxsan insha Allah inaan aniguna ururka meel fiican gaariyo oo nigsan doono meelaha ugu sarreeya ururka geedo meelaha hamigiga ku jireen gaarsiyo aan ka mid dhaliyo maxaa rasiin sana qaban doonto insha Allah horta waxyaabo badan ma ku yahay maskaxda ku jiraan qaban doono insha Allah intii ilaahay ka ogolaado waa qaban doona way gudoomiyaha horeeyay xubno cusub soo daartay ma rajaynayaa qaran doonto إن شاء الله وقصد دري هذا نفتوى إن شاء الله وقصد دري إن حمنا عصب إن الله يتيان كدري كني لهيك كده وضمين فيها تعيش ولا كسلام waxaan salaam leeyahay Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar oo ninkaasoo waxaan ku ururka in badan ka soo geystay oo waxaan ku ninka qaban qaabay iyo weeyna kala taagnaa ee waxaan ku boqolkiiba 9 waxaan ku ururka qaybtiisa waday ee waxaan ku hawsha weyn ka qayb qaatay haday doorasho tahay haday waxaan ku ururkaas u socdo tahay waxaan ku ninkaas boqolkiiba 100 mahal weysiinay oo leey ilaahay ka awaal mariyo waxa ay soo qabatay waxa ay la soo qabatay boqolkiiba 9 waxa kale oo mahad leeyahay xubnaha cusub ee Xasan iyo Xamuud oo leey idinkuna ururka kulay badan ma soo jirteen waana idin baleenaya halka ka sii wada wixii la hawshiina ka sii wata insha Allah doorashada ma gaari doono ويا dhageystayaal kaasoo waxa gudoomiyihii ururka siisa soo xukumayay muddada dhan 2 bilood iyo 15 cisho mudane Maxamed Xuseen Ibrahim oo ku guuleystay mar labaad doorashadan hadaba dhageystayaal
وعشيد مدن وحاو سوق قدوميها المنتدى في الجاي وحنا اللي دونا وربحين كوبان أو كهذا يسوي عقبة كيسي حتى لو لقيت شيء دقيقة يقايا شمت سعيد كان لقى مدن هو يمكن كنت دونا دونا مش دونا وطول ملا وأنا عبد الرحمن رشيد المرة يمكن كده يلنا نسين تمام في الصلاة ينبات كل